xasan cilmi siyaad oo ka tirsanaa ururka argagixisada al-shabaab 4 sano ee la soo dhaafay ayaa maanta isu soo dhiibay ciidamada deegaanka ee ka howlgala deegaanada difaaca koonfureed kaga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. xasan ayaa muddadii uu ka tirsanaa ururka al-shabaab waxa uu qaabilsanaa isku xirka kooxda iyo deegaanada uu ka howlgalayay. nabadoono odayaal dhaqan iyo ciidanka deegaanka ayaa maanta magaalada Beledweyne keenay isu soo dhiibay xasan cilmi siyaad ayagoona warbaahinta kula hadlay xarunta taliska hay'adda nabad sugidda ee gobolka Hiiraan waxayna ay wareejiyeen horjooga xasan. waxaa halkaan noogu yimid nin la yiraahdo xasan cilmi siyaad oo ka tirsanaay nimankaas shabaabka ah asigana hadda ku soo galay mabdi'iisa nin uuna soo jajoobin annagana meeshaasan kala soo amba qaadnay ninkaas waa soo dhaweynay haddaan la kudisi wanaagsan u soo dhaweynay haddana waxaan ku wareejinaynaa haddii ilaahay yiraaho saldhigga ciidamada nabad sugidda ayaan ku wareejinaynaa. xasan cilmi siyaad oo ka soo goostay ka yimiday shabaab taliyaha ciidankaana wargeliyey annaga odayaashii beeshaan nahay kii maqan inaan doonno jooganaan gacanta qabanaan xaq u leynahay haddii marka uu ka soo dhaco xildhibaankanagii taliya ciidankana uu ka soo dhacay saasaa nalagu soo wargeliyey biyogoday u horaana arrintii oo dhan annagay nagu tumiday annagana saaga gacantaan soo qabannay xasan cilmi siyaad waxaan ku soo dhaweynay si sharaf leh oo qiimo leh wax soo jajoobay ma leh. xasan cilmi siyaad oo muddaba ku maqnaa shabaab dhexdiisa ku maqnaa ayaa wuxuu isku soo dhiibay si sharaf leh wanaag badan kalgacaltooyo leh annaga ka odayaal ahaan marka doorka aan ku leenahay ayaa waxa ah mar haddii ninkii gacanteena la soo geliyey oo annagu nagu soo wareegay inaan sidii sistamku ahaa iyo nidaamka dawliga inaan ku wareejinno taliyaha ciidanka nabad sugidda gobolka Hiiraan muxuu ahaa korneyl farcadde ujeedkan u nimid marka sidaas uu ahaa waxaan arrintii ku wareejinay oo aan ku wareejinaynaa taliyaha ciidanka nabad sugidda gobolka Hiiraan. xasan cilmi siyaad ayaa dhankiisaba cadeeyay in uu ka tanaasulay fikirka khawaarijta al-shabaab uuna diyaar u yahay in uu la shaqeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. meeshaas go'aan aniga aan qaataan ugu soo tagay waxa ilaa abuurtay oo ama lacag uu siiyey ama laaloosh uu siiyey ama tashkiili ma jiraan go'aan aniga aan qaatay oo ilaahay diiwayna subxaanahu wa ta'aala ugu soo saxday ugu soo riday oo tii hore oo macnaha aan ku galay tu ka fiican ilaahay ugu soo riday aniga meeshaas oday ka ahay bal dhaqor la yiraahdo deegaan yar oo tuulooyin aan joogi jiray wali arday dad islaam ma dhibaataynin wax dhibaato islaam uma geysanin afkayga iyo dayda qof islaam ah ma dhibaataynin wali ma dagaalin xabad ma ridin oday meeshaas joogaan ah laakiin mabda'aas on koro ayaan macnaha aan ka tirsanayn mogi saas macnaha aan ahay midda labaad markaan arkay marka waxa dhibaatada meesha ka dhici oo tolkayga iyo ahalkayga wax lagu dhibaatayna markaan fiirshay oon arkay waa qaado waay way cunto mooyse rag badan oo walaala oo hadda meesha jiro iyo aniga waa ka wada hadalnay kulley waxaan sugaynay waxyaabihii dhacay dadku ogyahay waxyaabaha dhawa ogyihiin dibkaan ka bilowday waxaan in badan raadinay in la ka qanciyo raadinay annagoo odayaal oo rag ka tirsan oo beeshal dhibaatay ka mid in macnaha waxaan raadinay nala ka qanciyo waxay hada umaleyn ugu yaraan waxa laga joogaa umaleyn hal sano halkaasna waxaan ku jirnay dad cilmi leh imaad doone bal waxay ku qanciyaan bal suga dadkuna waxa bani'aadamkan waxa waaye waa ruux iyo jismi aniga u soo noqdo intaas aan la joogo waxaan kula joogay qolofkayga waxa la joogay macnaha qolofkayga mooyee qalbiga ma joogo waa iska joogay qalbiga joogo mooyee qolofkayga joogo qalbiga lama joogin aniga saasaan ugu soo dhamaaday nimankaasna waxaan leeyahay walaalahay rag badan hadda walaalahay meesha jiro waxaan dhihi lahaa walaalahay yimaadiino si fiican la soo dhaweeyay oo sharaf leh oo wanaagsan waxaan u imid dadkii deegaanka aan ka dhashay oo noociisa kala bedelan aan u imid way soo dhaweeyeen odayaashana wadada waa mahadsan yihiin. taliyaha hay'adda nabad sugidda ee gobolka Hiiraan ayaa dhankiisaba u mahadcelisay odayaasha dhaqanka iyo isu soo dhiiba xasan cilmi siyaad go'aanka geesinimada leh oo qaatay oo kaga soo tanaasulay fikirka khawaarijta. dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa nabadoonnada sharafta leh
igu soo simay ninkan odaga ah ee xasan cilmi siyaad oo ka tirsanaay maleeshiyaadka al-shabaab ee ummadda Soomaaliyeed dhibka ku haya aad iyo aad odayaashu u mahadsan asigana aad u mahadsan yahay waana kala wareegay anigoo ah taliyaha hay'adda mas'uuliyadda gobolka Hiiraan Zakariya Cali Raage warbaahinta qaranka magaalada Beledweyne.